ha dhayalsan calaamadaha laguu soo diraayo ama fariimaha ay maskaxdaada kuu soo dirayso, kuwaasi oo kuu sheegayo in aad maskaxiyan u daalan tahay, isla markaana aad u baahan tahay in aad isla markaasi tilaabo qaadid. Isku soo noqod wanaagsan asxaabteeda qaaliga ah, waa anigoo ah Dr. Idil. sidoo kale waxaad nagala socotaa podcastga Dr. Idil. maanta waxaan ka hadli doonaa xalqad aad muhiim u ah. marar badan waxaan arkaa dad badan oo markay bulshada iskugu yimaadaan xanaaqooda uu degdeg yahay, dulqaadkoodu yar yahay, emotionkooda aan xakameyn karin ama dareemahooda aanan xakameyn karin. haddaba ma ka mid tahay dadka daalka badan dareemayo xitaa haddii ay seexdaan oo maanta markaad soo kacdid meeshii lagaa rabay inaa energy iyo firfircooni aad ka qaadid aad dareemaysid daal aad u badan, hurdadana aadan ku nasanaynin, sidoo kale diirad saaridaada ee aad u hooseyso iyo wax soo saarkaaga. waxaa intaasi sii dheer in xanaaqaaga uu aad u badan yahay, sabab la-aanna aad iska xanaaqayso marmarka qaar, qayladaada ay badan tahay, sidoo kalena aad dareemaysid walwal iyo murugo badan oo joogto ah. dumarka waxaa usii dheer in ay ilintu si fudud ugu timaado, sababtaasina ma yaqaanaan badanaa. waxay arkaysaa emotionkeeda inay mar walba kacsan yihiin, marar badan inay u baahan tahay inay isku ooso. calaamadahaasi aan soo sheegno oo dhan waxay ka turjumayaan fariin adag oo laguu sido oo ka timid maskaxdaada, sidoo kalena ay ku leedahay waan daalanahay, waxaan u baahanahay nasiino. mana ahan wax aad dhayalsan kartid, oo waa wax aad iyo aad iyo aad muhiim u ah in aad ku baraarugsanaatid marka calaamadaha aan hadda soo sheegno aad isku aragtid. maalin maalmaha ka mid ah waxaa dhacday hooyo Soomaaliyeed oo caruur u joogaan, isla markaana mas-uuliyadda caruurteeda iyo mas-uuliyado kale ay isku saaran yihiin, sida in ay hooyadaas shaqeyso 10 saacadood maalinkii. marka ay shaqada ka timaadana waxaa usii dheer caruurtii noloshoodii iyo kalmaareyntoodii, in ay sidii ay hooshas ugu jirtay maalin maalmaha ka mid ah ay istaagi ka dhacday. marka isbitaalka la geeyana wax calaamad oo markaas ka muuqday maysan jirin, laakiin waxa ugu muhiimsan oo markaasi laga helay inay ahayd maskaxdeeda inay aad u daalneyd. jirkeennana wuxuu leeyahay wax loo yaqaano homeostasis. waxaa waaye in dib jirkeenu uu isu update gareeyo oo maxaa la dhahaa xaaladda jirka uu markaas ku jiro laga saaro. tusaale ahaan marka qandho ay qabato oo kale, qandhadan aad ay u daran tahay, qofka waxaa la sameeyaa inuu jareeyo ama qarqaryoodo. taasina waxaa loogu gul leeyahay jirka in uu dhidido, kadibna dhididkaas kadib uu qaboobo oo qandhada qofka ay ka jogto. marka hooyadaasi markii la wareystay waxay dhahday aniga oo waxaan is arkaa socdo oo ordaayo, haddana aanan ogeyn sababta aan u ordaayo. daalkayga aad ayuu u badan yahay, laakiin waxaa ahaay dadka iska indha tiro oo daalka waxaan u arkaa wax looga gudbo adkeysi. mana ahan daalka in looga gudbo adkeysi, daalka waxaa looga gudbaa in aad si sax ah ula falgashid. waxaa jirto saameyn ba-an oo qofka ay saameynayso marka uu maskixiyan u daalan yahay. haddii aad tahay hooyo, waxay saameyn weyn ku yeelan doontaa caruurtaada, oo waxaa noqon doontaa hooyo qayli badan, buuq badan, aanan ku raaxaysanaynin hooyonimadeeda. qalad walba oo ilmahaasi ay galaanna waxaad u arki doontaa wax aad u culus. sidoo kale xiriirka kaala dhexeeya caruurtaada waxay noqon doontaa mid aan wanaagsanayn. haddii aad tahay qof xaas ah, xiriirka adiga lamaanahaaga wuxuu noqon doonaa mid aad u hooseeyo. waxaa yaraanayo dulqaadkaaga, waxaa yaraanayo la falgelidaada iyo sida aad mashaakilka u xalin lahayd. isfaham daro aad u badan ayaa dhankiina ka imaan doonto. sidoo kale haddaad tahay hooyo ama qof shaqeeyaba, nin shaqeeya haddaad tahay, wax soo saarkaaga aad ayuu u hoos dhici doonaa oo creativitygaaga wuu yaraan doonaa. sidoo kale wax ma diirad saari kartid oo diirad saaridaada way hooseyn doontaa. la dhaqanka dhanka bulshadan wuxuu noqon doonaa mid liito. oo tahay qof arday, sidoo kale wax fahamkaaga iyo waxbarashadaada waxay noqon doontaa mid liidato. dhammaan marka qof kasta oo biniaadan oo nool oo nolol walba uu ku jiro, ama waalid ahaaw ama walaal ahaaw ama xaas ahaaw ama wax baro ama shaqeey, markuu qofka maskixiyan u daalo, run ahaantii saameyn ba-an oo dhan walba ayay ka qabsan doontaa noloshiisa. marka daalka maskaxeed marka aan ka hadleyno, run ahaantii wuxuu saameyn ku leeyahay dareemahaaga iyo waxa aad dareemaysid. sidoo kale wuxuu saameyn ku leeyahay
jirkaaga iyo waxaa isku arki doontaa cuduro badan oo jireed. haddaba waa maxay daal maskaxeed? daalka maskaxeed waa marka ay maskaxdaadu si aad u daran u shaqeyso oo xad ka bax ah, muddo waqti dheer ahna ay shaqeyso maskaxdaada iyada oo aanan helin nasiino ku filan. taasina waxay keeni doontaa in uu saameyn ku yeelato dareenkaaga, fikirkaaga iyo jirkaaga intaba inay saameyso. calaamadaha lagu garto in aad maskixiyan u daalan tahay waxaa ka mid ah number 1 daal joogto ah. haddii aad seexato xitaa aanan daalkaasi uu kaa baaba'eynin. qodobkeena labaad waa in hurdadaadu ay badan tahay amaba aadan hurdo lahayn. sidoo kale qodobkeena saddexaad waa in aad jir ahaan u daalan tahay oo jirka oo dhan uu ku xanuunayo. qodobkeena shanaad waa inaa madax xanuun badan isku aragtid oo mar walbana joogto ah. qodobka ugu muhiimsanna wuxuu yahay xanaaq tiro badan oo mar walba aad isku arkaysid inaad wax yar haddii aad aragtid aad qarxaysid. haddaba maxay yihiin waxyaabaha keenayo in aad maskixiyan aad u daashid? ma shaqada oo keliya ayaa qofka maskaxda loogu daalaa mise waxyaabo kale ayaa jiraan? number 1 shaqooyin culus haddii aad tahay qof qabto isla markaasna aadan break qaadan ama aadan nasanin ama aan lagu caawinin, qayb weyn ayay ka tahay in maskaxdaadu ay daasho. weliba dadka maskaxda ka shaqeeyo ee aanan jirka ka shaqeynin. shaqooyinka waa labo. qodobka labaad waa in aad la kulantay xaalado xanuun badan amaba xusuus xanuun badan sida qof kaa dhintay, in lagu furay, in maxaa la dhahaye shaqo ay kaa baaba'day oo kale, inaad qof weysay kaa dhintay oo kale. xusuuso xanuun badan oo mar walbana aadan ka gudbin oo aad kusoo ceshceshatid oo mar walba aad isweydiisid sababta ay waxaas u dhaceen iyo in aad mar walba dareemaysid gocasho waa qodob labaad oo aad u muhiim ah, dad badanna ay ku baraarugsaneen. mar walba xusuusaha xunxun ama xusuusaha xanuunka badan oo noloshaada kusoo maray aad ku ceshatid waa mar walba oo aad maskixiyan aad u daashid. ugu dambeyn in qofka uusan helin nasiino ku filan amaba qorshihiisa aysan ku jirin in uu nasto oo maskixiyan u nasto. haddaba xalka muxuu yahay? qodobka koowaad, qof walba oo bini'aadan ah wuxuu xaq u leeyahay in uu helo nasiino ku filan. in aad shaqaysid ama hooyo tahay amaba wax aad baratid macnaheeda maaha in aad hilmaamtid noloshaada. waxaa loo baahan yahay nolosha inaad isku dheeli tirtid. marka waxaa u baahan tahay number 1 in aad nasatid oo maskixiyan aad u nasatid. culeysyada badanna aad iska yareysid. haddii shaqadaadu ay badan tahayna aad samaysatid dadka caawi shaqadaada oo aad u wakiilatid. qodobkeena labaad wuxuu yahay in aad lahaatid jadwalkaaga uu qayb weyn ka ahaado daryeelka nafta, sida in aad jimicsi samaysid, cunto caafimaad leh inaad cuntid, cabitaankaaga ama biyo cabistaaduna ay noqoto mid aad u fiican 2 litir ilaa iyo 3 litir. sidoo kale qodobka kale wuxuu yahay in hurdadaada aad saxdid. haddii aad tahay qof hurdadiisu ay saxsaneen waxaa u baahan tahay wax loo yaqaano sleep hygiene, nadaafadda hurdada. waqti saxsan inaad seexatid, jawiga hurdadaada inuu saxan yahay, rootiinka hurdadaada inuu maalin walba joogto yahay, ku dhawaad 6 saacadood ilaa 7 saacadood inaad seexatid. laakiin mar haddii hurdadaadu halaawdo ama kaa xumaato waa qodobka ugu muhiimsan oo waxyaabo badan noloshaadan ay kaa halaabi doonto. ugu dambeyn waa in aad iska xadidid culeysyada nolosha. sidoo kale haddii aad la kulmaysid xaalad niyad jab, walwal amaba dhacdooyin xanuun badan nolosha ay kaa soo wajaheen, waxaa u baahan tahay qof la taliya dhanka caafimaadka maskaxda in aad la hadashid oo aad u sheegtid si lagu caawiyo. haddii aadan taas samayn karinna ugu yaraan waxaa u baahan tahay in aad qorshe aad nolosha waxaasi kaga gudubtid oo aadan meeshaada u joogin. gunaanadkeeni, sida jirkaaga aad uga fikirtid bilicdiisa oo cuntadaada iyo qabeyskaaga iyo nadaafadaada aad uga fikirtid, maskaxdaadana waxay u baahan tahay in aad ka fikirtid oo xaq ayay kugu leedahay. sidoo kale ha dhayalsan calaamadaha laguu soo diraayo ama fariimaha ay maskaxdaada kuu soo dirayso, kuwaasi oo kuu sheegayo in aad maskixiyan u daalan tahay isla markaana aad u baahan tahay in aad isla markaasi tilaabo qaadid. haddii aad ka mid tahay dadka calaamadaha aan soo sheegnay isku arkay qayb ka mid ah, qaybta commentiga nagula wadaag. go-aankaaguna ma yahay in aad maantaba isbeddel samaysid. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka. mahadsanidin.